da'adeeduna waa 16 ilaa 17 sidan iskuulka u dhiganayay maalin maalmaha kamid ah ayaa macallimiinta iskuulka ii dhigaysa macallin kamid ah wuxuu iga codsaday xiriir jacayl kama aanan ogolaan run ahaantii waan diiday waxay muddo socotaba in badan waqti ayuu ugu bixiyay mar walbana wuxuu ii sheegi jiray inuu jecel yahay si dhab uu ii jecel yahay uu u baahan yahay inuu mustaqbal ila wadaago wax oo diina u diidaysa ama wax sharci oo u diidayana uusan jirin ilaa heer mustaqbal inuu ka rabo ayuu u sheegay waxay sidaa ahaataba waxaan dhex maray xiriir jacayl oo aad u qurux badan xiriirkeen jacaylna aad ayuu u dheeraaday waqti badan ayuu qaatay ilaa heer kalsooni wax walba la iska qarsanin waxna la kala soocanin ay leedahay abaayo kadib waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah inuu iga codsaday inuu rabo inuu si gaar ah ila kulmo anigana waan ka aqbalay waliba si kalsooni leh oo aan cabsi ku jirin waan baxnay waxaan ku kulannay guriyaha magaalada Muqdisho ku yaalo guri kamid ah oo asaga degnaa iskaabulana uu ku ahaa gurigii aniga wax cabsiya kama qabin wax muruga ah iguma sii jirin wuxuu igu qanciyay inaan siiyo mustaqbalkayga si warwar la'aan ah maadaama aan ahay qof asaga guur ka sugayso mustaqbalka dambana ay isku dambeyn doonaan waxaan wada doodno uu igu qanciyay wuxuuna igu qanciyay inuu yahay qofka mustaqbalka ay guursan doono waxna aysan kala socneen mar dhowna uu guursanayo haddii waxaas dhexmaraanna aysan dhexmarinna ay noqon doonto ooridiisa gabadhii waxay dhahday halkaas maalinkaas waxaan ku waayay mustaqbalkayga rajadeyda farxadeyda iyo waliba gabarnimadeeda maalinkaas waan iska soo baxay xaafadan iska imaaday warwar iyo waxa ii bilowday walbahaar iyo waxa dhici doono dhabahantii aad ayaan u warwari jiray maalin walba maalinta ka dambayso aad ayaan u warwari jiray waxaana ka walwali jiray waxa dhici doono mustaqbalka ninkii intaas oo kalsooni aan siiyay jacayl aan siiyay wax walba aan siiyay gabarnimadeeda iyo mustaqbalkaygana aan siiyay asagoonan xirigna dhexyaalin kadib waxaa dhacday inuusan ii qabin wax jacayl ah wax naxariisna uusan ii haynin rabitaanna uusan jirin dhankiisa balse wax walba uu sameynaayo ee ka ahayd rabitaan uu u qabo jirkayga ayay leedahay abaayo marka waxaa dhacday waxaan sidaa ahaanaba waan ku kala harnay xiriirkii meesha ayuu ku burburay anigana maalin walba waxay ii ahayd maalin geeri oo aanan noolayn oo aanan dhimanin maalin walba oo waagi ii baryan waxaan ku soo waabariisan jiray murugo walwal iyo walbahaar iyo maxaa dhici doono ayay leedahay abaayo kadib waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in reerkayga layga soo doonto la dhaho gabadhiina hiblaayo ayaan u baahanahay reerkaygii oo waxba i weydiinin waxay dhaheen wiilkii insha Allah wax walba ay hagaagi doonaan gabadhana waxa waay adigay ku joogtaa soo diyaar garow aniga la ii imaaday wax walba waa la ii sheegay waxaana la ii sheegay in wiilkaas la sii doono uu ay guursan doono reerkaygii waxay ii sheegeen inay wiilkaas siiyeen aan isku diyaarin doono mustaqbal iyo guur aniga ku marmarsiyoonayo waxbarashadeeda waxaan ku dhahay reerkayga waxaan ahay gabar waxbarasho u socoto mustaqbal leh hooy hadda guur diyaar mi waxyaabo la mid ah arinta asaasku maysan ahayn midaas balse waxaa jiray wax aanan faamigayga u sheegi karin ninka mustaqbalka aan la wadaagayo oo guurkiisa la ii diyaarinayana aanan u sheegi karin dhab ahaantii ma aqaano si aan ku dhaho reerkeena aniga miihi gabar mustaqbalkaygana mar hore ayaan ku ciyaaray macalinkaygii iskuulka ii dhigay ayaana waxaasan dhex mareen af aan ku dhaho maalihi dhab ahaantii aadna waan uga murugaysanahay arintaas waxaan rabaa inaad igala talisaan waxyaabaha igu gudboon aan samayn karo iyo sidaan ugu sheegi lahaa faamigayga maadaama arintii ay taagan tahay si dhaba dhinac looga laabtana aysan jirin waxaan rabaa inaad igala talisaan waxa aan samayn karo ama waxa igu gudboon aniga halka fikir oo mar walba maskaxdeeda ku soo dhacay ayaa ah
inaan naftiisa dhaafiyo ama ka fogaado reerkayga meesha ay joogaan. talada mid ugu wanaagsan Allah agtiisa ay jirtaa, laakiin anaga waxyaabo noo gudboon ayaan kugula tali doonaa sister. waxaan rajeynayaa in wax walba ku fududaa doonaan, wax walba ku sahlanaa doonaan. waxaan rajeynayaa mustaqbalkaaga iyo ayaga in meeshaas oo ku burburin dib dambana ama mustaqbal dambe aad u yeelato. gabar walba oo gabadhan la mid ah oo qaladkan gali doontan waxaan kula dardaarmayaa inay qaladaadkaas oo kale iska ilaaliyaan. reer dhan ayaad mustaqbal u tahay. abay adigana waxaan kugula talinayaa ha ka fogaan reerkaaga, hana ka cararin runta, maadaama shalay uu ahaa qalad aad gashay. familygaaga u sheegtid wax walba ay kugu qaadato. inta aad ku kici lahayd qalad midkaas ka sii weyn oo bari ah zaa'id uga shalayn doontid. waxaan rajeynayaa inaad la soo talin doontaan tala mid ugu wanaagsan. Peace and love.